بسم الله الرحمن الرحيم وصباح نمج معاه تاريخ ذي كوبيغان تهاي كوي لواتنك بيش اللي حاد سنة اللابد كوني سغالي طبعا قضبضا ورركا جنال كينا توبسن ميديا تكو دابان تونتان وحاكمة صباح دنيمدان مدحوينها الصومالي وهشيس عالمي الصحيحي حرونتا كلها شعبكو ضيعتركيدو دماضي iyo مسؤولين بوقتay shirku aadan maalmaha xuriyada Soomaaliya oo muqdisho ka dhacay ra'iisul wasaare Khayre oo kulan la qaatay guddiga heer qaran ee loo xil saaray munaasabadaasi shirar gooni ah oo amniga ku saabsan oo muqdisho ka socda saameyntii fatahaadda wabiga Shabeelle oo gaartay heerka uu sareeyay iyo mas'uuliyiin sarsare oo booqday gobolka Shabeellaha Dhexe intaasi waxay ahaayeen qodobada wararkeena aad ka daawanaysaan maanta oo taariikhdu tahay 22 bisha lixaad sanadda 2019 توبسن ميديا madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta saxiixay heshiiska ka mid noqoshada ahdiga qaramada midoobay ee xuquuqda dadka naafada kaasi oo ahmiyad gaar ah siinaya naafada Soomaaliyeed ahdigan caalamiga ah ee madaxweynuhu saxiixay ayaa wax badan ka tiri doona daboolida baahiyaha gaarka ah oo ay qabaan dadka lixaad kala sida inay helaan caafimaad waxbarasho xuquuq iyo sinaan la mid ah dadka kale wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka Soomaaliya maruu deeqa Yaasiin Xaaji Yuusuf oo warbaahinta la hadashay ayaa sheegtay inay guul weyn tahay in madaxweynuhu saxiixo ka mid noqoshada heshiiskan sidoo kale wasiiradda ayaa tilmaamtay inuu sharcigan soo maray marxalado kala duwan si looga miro dhaliyo maanta waxa alla mahadiis ah gabagabadeedii maanta inay tahay oo ah in madaxweynuhu uu saxiixo taas ayaana maanta dhacday madaxweynaha dawladda federaalka ayaa maanta saxiixay taasna waxay soo gabagabeynaysaa habraaci soo socday maantana si oo maaragtay dhab ayay Soomaaliya ahdigaas u saxiixday markuu madaxweynaha uu saxiixo ahdigan wuxuu muhiim u yahay sababtoo ah Soomaaliya waxay ka mid tahay qaramada midoobay sidaas darteed ahdiyada adduunka in laga mid noqdo waa muhiim sida la socotaan sanadka 2018 madaxweynuhu wuxuu saxiixay sharcigii dhisidda hay'adda dadka naafada ah taas ayuu saxiixay waxa kaloo hadda ay wasaaraddu ay maaragtay gabagabo u ah oo ay mardhow soo dhameyn doontaa sharcigii weynaa ee xuquuqda dadka naafada ah kaas oo taaban doono dhinacyo badan dhinaca caafimaadka dhinaca waxbarashada xuquuqdooda shaqada marka waxay noqonaysaa sharci weyn oo arrimahaas oo dhan maaragtay ka shaqeeya taasna way soo dhamaan doontaa munaasabada uu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi ku saxiixay heshiiskan ayaa waxa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka iyo agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka Professor Nuur Diiriye Xirsi gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Mursal Sheekh Abdiraxmaan oo ay weheliyaan gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha shacabka mudane Cabdulle Sheekh Ibraahim Mudey iyo xogayaha guud ee golaha shacabka mudane Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux ayaa xarunta gudoonka iyo gudiyada golaha shacabka ee Villa Hargeysa waxa ay kulan kula qaateen safiirka dawladda in walaalahanahay ee Turkiga u fadhiya Soomaaliya waxa markaasi ay kulankooda uga hadleen xiriirka walaaltinimo ee ka dhaxeeya Turkiga iyo Soomaaliya iyo sidii loo joogteyn lahaa iyo sidii loo kordhin lahaa taageerada dhinaca walba leh oo shacabka Soomaaliyeed iyo dawladooda ay ka helaan dawladda walaalaha Turkiga gudoomiyaha golaha shacabka ku-xigeenkiisa koobaad iyo xogayaha guud ee golaha shacabka iyo safiirka dawladda Turkiga ee Soomaaliya ayaa intaasi kadib waxa ay kormeereen xarunta kumeel gaarka ee golaha shacabka uu ku shiri doono inta laga dhisayo xarunta weyn ee guriga ummadda taasoo hadda laga hirgeliyay oo dhismeedaba gabagaba uu yahay xarunta gudoonka iyo gudiyada ee Villa Hargeysa waxa ay kormeereen guud ahaan qaybaha xaruntaasi ay ka kooban tahay sida hoolka kulankamada guud ee golaha shacabka ay ka dhici doonaan iyo xafiisyada kale ee xaruntaasi ku yaala indhihiindhayn iyo kormeerid xaruntaasi ay ku sameeyeen kadib waxa warbaahinta qaranka la hadlay xogayaha guud ee golaha shacabka Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux bismillaahir rahmaanir rahiim maanta oo taariikhdu tahay 20 gudoomiyaha golaha shacabka gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka waxay fadhi khaas ah wada lahaayeen safiirka Turkiga u jooga Soomaaliya madaxa Albayrak
shirkadda la yidhaahdo u jooga iyo tika oo sida USAID-ka Maraykanka iyo Ingiriiska oo ah gacanta dawladda saddexdaas qaybood oo Turkiga ah iyo guddoonka ayaa kulmay waxaana laga wada hadlayay dhismahan iga dambeeya oo ah dhismaha kalfadhiga shanaad uu u soo guuri doono kalfadhiga shanaad dhammaadkiisa uu u soo guuri doono golaha shacabku oo ku meel gaar ahaan uu halkan ugu shaqayn doono dhismahaas oo hadda faraha laga qaaday oo ay dhameeyeen waa la kormeeray gudihiisa kuraastiisa wax walba sidii loogu talagalay heshiisku ahaa iyo ka fiican buu ku dhammaaday aad baana looga mahad celiyey dawladda Turkiga ee walaalaha nahay sida ay mar walba Soomaaliya markii ay jilcday ugu horjoogaan ay garabka uga galeen una caawiyeen waxa kaloo laga hadlay xiriirka labada dal waxa kaloo laga hadlay mashaariicda kale ee ay soo wadaan oo iyaguna wax badan hadda ka socdo banaadir qaar kalena ay ka bilbilaabeen ma aragtay ismaamul goboleedyada mashaariicda kale soo socota ayaa laga wada hadlay marka waa dad u jihaystay dawladda Turkigu ay ka go'antahay inay Soomaaliya caawiyaan ilaa intii lugaheeda isku taagayso aad iyo aad baan u mahadsantihiin Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa xarunta wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska kula kulmay guddiga abaabulka xuska munaasabadda maalinta xurriyadda iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed ee 26 Juun iyo 1 Luulyo. Guddiga ayaa Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda u soo bandhigay qorshahooda ku aadan qaabka ay u dhacayaan munaasabadaha lagu xusayo maalmaha muhiimka ah ummadda Soomaaliyeed iyo qorshayaasha waaweyn ee degsadeen. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo warbixinada markuu dhageystay kadib waxa uu ku bogaadiyay guddiga qorshayaasha guddiga isagoo kula dardaarmay in laban dadaalada ay ugu jiraan in munaasabadda xuska ay u dhacdo qaab ka wanaagsan qaababkii hore isla markaana shacabka Soomaaliyeed ay jeclaystaan. Wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ahna gudoomiyaha guddiga ayaa warbaahinta qaranka u sheegay in munaasabadan ay ka duwanaan doonto munaasabadii hore isla markaana loo diyaariyay qaab shacabka Soomaaliyeed guud ahaan ay qayb uga qaadanayaan. Bismillahir Rahmanir Rahiim. Waad arkaysaa maanta Ra'iisul Wasaaruhu wuxuu ka soo qayb galay kulankii joogtada ah ee baryahan ay yeelanayeen guddigii uu magacaabay heer qaran qabaqaabada munaasabadaha xurriyadda iyo midnimada 26 Juun iyo 1 Juulaay. kulamadoodii baa Ra'iisul Wasaaruhu ka soo qayb galay si uu u ogaado meesha ay wax noo marayaan. runtii Ra'iisul Wasaaraha waxaan warbixin ka siinay qabaqaabadu qaabkay u socoto oo sanadkan la qorsheeyay inay ka duwanaato sanadihii hore abaabul weyn la sameeyo ummadda Soomaaliyeed oo hadda rajadoodii ka soo kabashada dhibaatooyinkii dagaalada sokeeyay ee dawlad xumida ama dawlad la'aanta laga soo baxay in rajadaas ummadda Soomaaliyeed maanta qabto dareenkooda la mideeyo ayaa la qorsheeyay oo munaasabadaha la weyneeyo marka taas awgeed baa Ra'iisul Wasaaruhu nagala soo qayb galay si fiican baa wax noogu socdaan warbixin fiican baanu siinay isaguna talooyinkii munaasibka ahaa ayuu na siiyey waxaa la qorsheeyay sanadkan sidaan sheegay in la weyneeyo munaasabadaha qaranka sidaas awgeed kulanka maanta Ra'iisul Wasaaruhu wuxuu na amray inaanu abaabulno ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto sida dawladda dhexe iyo hay'adaheeda oo shaqaalaha dawladdu ku jiraan maamul goboleedyada safaaradaha Soomaali diasporaha adduunka oo dhan in munaasabadaha qaranka ee qiimaha badan Soomaaliya ugu fadhiya la weyneeyo sida shucuubta kale adduunka u weyneeyaan loo weyneeyo sidaas awgeed baaqaas ayaanu gaarsiinaynaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaanuna ku dhiirigelinaynaa ummadda Soomaaliyeed kulligood noloshoodu waxay ku hagaagaysaa dawladnimo iyo nidaam iyo iskaashi iyo walaaltinimo iyo dib u heshiisiin iyo nabad iyo nolol marka inay taa ummadda Soomaaliyeed ka shaqeeyaan dawladooduna waxay diyaar u tahay inay hormuud u noqoto. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa 9kii bishan magacaabay guddiga qabanqaabada xuska sanad guurada 59aad ee maalmaha xurriyadda Soomaaliyeed iyo midnimada shacabka waxayna ka kooban yihiin heer wasiir
shirkaani ayaa ujeedkiisu ahaa mid tiirada lagu saarayay sidii loo xoojin lahaa loona dardargelin lahaa amniga magaalada Muqdisho kaasi oo habeenadan dambe ka socday degmooyinka gobolka Banaadir waxaana shirka gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineer Riiso sidoo kale waxaa shirkaani goobjoog ka ahaa taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed marka uu shirka soo ilaaday kadib ayaa saxaafadda waxaa la hadlay gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Cabdullaahi Maxamed Tuulax waxa uu ka warbixiyay ujeedka shirkan iyo wixii ka soo baxay ugu duwan yahay shirkan waxa jira guddi kormeera oo maamulka gobolka Banaadir iyo wasaaradda amniga iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha oo warbixin joogto ah ka keenay subax walba degmooyinka taga checkpointiyada taga haddii culays ay shacabku qabaanna checkpointiyada magaalada ay ciidamadu joogaan soo kormeera habka wada shaqeyn ama dhacdooyinka ka jira degmooyinka warbixin ka keena annaga marka maamulka ugu horeeyay gudoomiyaha gobolka iyo taliyaha ciidanka booliska iyo wasaaradda amniga waxaan jawaab degdeg ah laga bixiyaa warbixintii guddigaas kormeerka uu keenay hadday noqoto mid wada shaqeyn xumo oo u dhaxaysa ciidanka hadday noqoto culays amni oo ama dulduleelo amni oo ka jira degmada markaas warbixinta laga keenay ama hadday noqoto mid shacabku ay qabaan oo laga yaabo wadooyinka qaar ee shacabku ay dhib ku qabaan laga yaabo degmooyinka qaar inay u baahan yihiin howlgallo dheeri ah marka ramadaankii ilaa haddeeraan wadnaa waa bilow oo ka duwan si joogto ah wax badan iska bedel markaan dib u eegno sidii ay ahayd wada shaqeynta iyo isla xisaabtanka degmadii marka warbixinteeda naloo keeno markiiba degdeg aan uga jawaabnaa hadday noqoto dad maamulka ka tirsan oo shaqo xumo lagu soo eedeeyo ama wada shaqeyn xumo tallaabo degdeg uu ka qaadaa maamulka gobolka marka qaabka ugu duwanta waxay tahay waa isla xisaabtan iyo falcelin degdeg ah oo isla socda mas-uuliintani maanta soo gaartay caasimada dowlad goboleedka Hirshabeelle ee magaalada Jowhar ayaa ka kala socda wasaarada ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya oo kala ah wasaaradda beeraha iyo waraabka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha wasaaradda qorsheynta wasaaradda gargaarka iyo xubno ka socda xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka sidoo kale socdaalkooda waxaa ku weheliya mas-uul ka socda hay'adda Muslim Aid oo ah khabiir dhinaca biyaha ah waxay mas-uuliintan isla maanta soo kormeereen biyo xireenka weyn ee Sabuun oo loogu talagalay xilliga webiga Shabeelle uu buux dhaafay in biyihiisa la weeciyo si loogu kaydiyo goobo loogu talagalay hase ahaatee dhowr iyo 20 sano ee la soo dhaafay ayuu ahaa mid howlgaba oo aan shaqaynin mas-uuliinta ayaa indhahooda ku soo arkay qoryo aad u waaweyn oo ay biyo soo xambaareen oo xira goobihii biyuhu ay ka gudbi lahaayeen ee biyo xireenka waxayna sheegeen qoryahan dugubada ah in ay sabab u yihiin fatahada webiga Shabeelle uu sameeyay maadaama aysan biyo haysan meel ay ka gudbaan mas-uuliinta ayaa goobaha maanta ay soo booqdeen oo ay fatahada ka dhacayaan waxay ku tilmaameen dhibaatada ka dhalatay in ay la wadaageen maamulka Hirshabeelle iyo shacabka intaba mas-uuliinta ayaa sidoo kale kulamo la qaadatay madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle mas-uuliin ka tirsan Hirshabeelle waxayna si weyn uga hadleen si loo maareyn lahaa fatahada webiga Shabeelle uu sameynayo kulanka markuu soo gabagaboobay ayaa warbaahinta waxaa la hadlay wasiirka biyaha tamarta iyo bay'ada dowlad goboleedka Hirshabeelle Shacaab Cabdikariin Muumin wuxuuna si weyn uga hadlay dhibaatooyin kala duwan oo ay geysanayaan fatahada ka dhacaya Hirshabeelle oo wax dayactiro xanaaneeyo gacan ku heena ay waayeen ama taageero buuxda oo burburkii kadibna aan aad loo gacan heenin dadkuna ay tabar u waayeen qashinkii iyo geedihii iyo ciidiina ay kor degtay waxaana biyo inta badan sababa horta ciladahaas ugu horeyso biyo xireenadu aan dayactir xoog leysan waxa ayaan halkaasi ka hadlay Cabdiwaaxid Ibraahim Axmed oo agaasimaha guud wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo Maxamuud agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalka Soomaaliya waxayna sheegeen waxyaabihii ay soo arkeen in ay u gudbin doonaan xukuumadda federaalka Soomaaliya si wax looga qabto halkiina indheen ayaan ku soo aragnay waxaanu ka diyaarin doonaa riboodkaasna waxaan hor dhigi doonaa ra'iisul wasaaraha insha Allah waxayna noqon doontaa si degdeg ah in waxyaabaha aad iyo aad hadda emergency-ga ee baahida loo baahan yahay in marka kaas la xalliyo tan kale ee guudna hadduu ilaahay ka raali noqdo iyadana qorshaheennii aanu ku darsanno aan diyaarino hadduu ilaahay ka raali noqdo 4 bil kadibna qorshaha guud ee biyaha dalka ayaa la soo bixi doona kaasina ayaa wuxuu noqon doonaa mid lagu xalliyo يعني maamulka iyo maareynta biyaha dalka ee Soomaaliya haddaan sabuuni qoryaha ku go'an iyo qashinka ku go'an aan laga saarin
biyuhu webiga xagga biyo dambe u deymay webiyihii oo jira ayaa shabeellada balcad wixii ka bilowdaba aanan heli doonin biyo oo ka go'i doonaa webigu marka in gurmad loo sameeyo sidii looga guri lahay qoryaha ku ururay iyo qashinka ku ururay. wacyigelintani ee maamulada degmooyinka warta nabadda iyo howlwadaag ay ka sameeyeen xaafadaha ayaa ah mid dadka deegan degmooyinkaasi lagu baraarujinayay sidii ay ugu diyaargaroobi lahaayeen maalmaha xurriyadda ee 26 Juun iyo 1 Luulyo oo fooda inagu soo heeso waxaana laga bilaabay degmooyinkaasi in guryaha laga taago calanka Soomaaliya oo muujinaya astaanta qaran ee Soomaaliya iyo sidoo kale waxaa degmooyinkaasi laga sameeyay nadaafadeen lagu hagaajinayo bilicda wacyigelintaasi ay sameeyeen maamulada degmooyinka warta nabadda iyo howlwadaag ayaa waxaa ka warbixisay Saynab Maxamuud Warsame oo ah gudoomiyaha degmada warta nabadda maamulka degmada howlwadaag iyo maamulka degmada warta nabadda ciidanka booliiska ee ka howlgala labada degmo saldhigga degmada howlwadaag iyo saldhigga degmada warta nabadda oo ay nagala joogaan labadii taliye ee aragtaan taliye Xuseen iyo taliye Cali guud ahaan inagoo isku duuban waxa inoo socotay isbuuca xurriyadda weyneyntiisa sidii bulshadeena degmooyinka ku dhaqan aan uga wada qayb qaadan lahayn munaasabada maadaama ay tahay munaasabad ummadda Soomaaliyeed qiimo iyo qaayo weyn ugu fadhisa qof kasta oo muwaadin Soomaaliyeedna la rabo in uu muujiyo dareenkiisa ku aadan marxaladda maanta la taagan yahay iyo qiimaha iyo qaayaha ay ku fadhiso waxaan shacabka Soomaaliyeed isbuuc maanta caawa oo inoo maraysaa wacyigelinteeda annagoo ku wacyigelinayna in ay ka qayb qaataan bilicda iyo naleenta calameynta guri walba iyo goob walbaba annagoo tix raaceena awaamirtii fulinaynana awaamirtii gudoomiyaha gobolka Banaadir ka soo baxday. waxaa magaalada Geneva ee dalkan Switzerland lagu soo gabagabeeyay kulankii guud ee ururweynaha shaqaalaha adduunka oo ay ka soo qayb galeen dalal fara badan oo caalamka ka kala yimid. kulankan guud ee ururweynaha shaqaalaha adduunka ayaa Soomaaliya sanadkan waxa uga qayb galay wafdi uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya xildhibaan Sadiq Warfaa. wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegay in sanadkan ay Soomaaliya ay guul weyn ka gaartay kulankan kadib markii 30 sano kadib ay dib u heshay codkii ay ku lahayd ururweynaha shaqaalaha adduunka ee xaruntiisa magaalada Geneva. marka sanadkan sanad aad iyo aad anaga muhiim ayuu noo ahaa waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed in la wadaago 30 sano kadib dalka Soomaaliya inay xuquuqdii oo codeyntii in dib u soo celinay oo maanta dalka Soomaaliya oo adduunyada kale uu la mid yahay oo 30 sano ma codeyn karin maadaama ana lacagtii oo dawladaha waxay baxshaan lacag oo sanadla ah oo ka mid noqoshaha ururka ah marka balaan qorshe wasaaradda marka imaanay ka hor u soo gudbiyay naga aqbaleen iyo qorshahaas u soo bandhignay inaan dalnahay dal mas'uula oo diyaar u ah inuu ka qayb qaato qaybtii libaaxeed oo ka ciyaar jiray ururada shaqada adduunka Soomaaliya runtii markii wadamo badan oo adduunyada ay waagii ay ku jireen xurimadoonka wuxuu dalka waxa ka mid nahay adduunyada dalka la yiraahdo dhexdhexaadka marka dal waxaan nahay nabadda iyo horumarka adduunka qayb weyn ka qaatay marka Soomaaliya adduunyada dib ugu soo noqonayso aad bay ururkan ugu farxeen waxayna mar dambe fursad noo siiyeen inaan codkeeni helno annagana waxa waajib nagu ah waajibaadkana saaran oo naga saar ururka inaan ka soo baxno. sidoo kale wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada mudane Sadiq Warfaa ayaa faahfaahin ka bixiyay kulan gaar ah oo uu la yeeshay madaxweynaha gobolka Geneva iyo duqa magaalada Geneva. waxaan nasiib u yeeshay inaan la kulmo madaxweynaha kantonka madaxweynaha gobolka Geneva Mr Mode nin ma taqaana runtii aad iyo aad dadka Soomaalida u jecel oo si fiican aan isku wareysanay aan ka wada hadalnay sidii dalka wuxuu aad u daneynayay maalgashiga ayuu aad u daneynayay oo wuxuu yiri waxaan rabaa investment in wax ku ogaado aniguna waxaan nidhi umaanan imaan baa inaan gacanta horsano waxaan nidhi Soomaaliya waxay u furan tahay ganacsi Soomaaliya waxay u furan tahay in maalgashi waxaan kaloo kala hadlay isna maaragtay in ay shaqaalaha dawladda Soomaaliya si noogu tababari lahaayeen dalkan Switzerland waa dal aad u horumarsan oo aqoon iyo xirfadaba aad uga sareyso marka Mr Mode oo ah madaxweynaha kantonka madaxweynaha gobolka Geneva runtii kulan laba geesooda
oo aan arrimo badan kula fagurnay in labada dal dalka Switzerland iyo dalka Soomaaliya ay mataqaanaa ay xiriir ay fiican ay hore u lahaayeen la sii wanaajiyo. Wasiirka wasaaradda shaqada ayaa kulan waxa uu kaga qayb galay magaalada Bonn ee dalka Jarmalka, wuxuuna sheegay in dowladda Jarmalka ay u ballan qaaday dalka Soomaaliya inay dib u howlgelin doonto iskuulaadkii farsamada gacanta. dalka Jarmalka waxaan ka helay casuumad rasmi ah wasaaradda dhaqaalaha iyo horumarka ee dalka Jarmalka. halkaas magaalada Bonn ayaan ku maqnaa 2 maalmood anoo casuumad rasmi ka haystay. madaxda waxaan la kulmay wasaaradda qaybta bariga Afrika madaxa ugu sareeya wasaaradda maaragtay shaqada wasaaradda horumarka iyo dhaqaalaha ee dalka Jarmalka. waxaana diiradda saarnay waxa weeye haddii fiiri dal anaga mustaqbalkeena wuxuu ku xiran yahay shaqaale xirfad leh. shaqo abuurku wuxuu ku xiran yahay waa inaad heshaa hadaa shaqo in abuurti rabtid waa inaad haysaa shaqaale xirfad leh. shaqaale xirfad lehna ma heli kartid haddaadan lahayn iskuuladii xirfadii dadka barayay. marka alxamdulilah rabbil caalamiin dalka Jarmalka ah wuxuu waagi hore naga caawin jiray oo iskuulkii farsamada gacanta ee magaalada Muqdisho ku yaala iskuulo kale haddana dadaalaas ay ku jiraan. marka qorsheyga ugu ballaaran oo aan ka hadlayay waxay ahayd in iskuuladii farsamada ee dalka inay dalka Jarmalka ay dib u howlgeliyaan. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa eedayn culus u jeediyay dowladda Iran. sida laga soo xiganayo wararka aqalka looga aramiyo Mareykanka ee White House-ka ayaa lagu sheegay in cara ay ka dhalatay diyaaradii ciidamada cirka Iran ay soo rideen maalin ka hor kuwaasoo ay ku sheegeen inay si qaldan u soo galeen hawada Iran. madaxweyne Donald Trump ayaan bartiisa Twitter-ka ku soo qoray in Iran ay sameysay qalad weyn waana inay ka dhalataa ciqaab adag ayuu yiri. diyaaradaha nooca aan tuuliyaha lahayn ayuu wasiirka arrimaha dibadda dowladda Iran ku sheegay inay ka ahaayeen taas lagu gol lahaa in Iran lagu qalqalqaliyo balse waxa uu intaas ku daray inay diyaar u yihiin difaaca dalkooda. xurgufta cusub ee dowladaha Mareykanka iyo Iran ayaa ka dhalatay horumarinta hubka nuclear-ka ee Iran ee dhinaca Iran ay ku doonayso inay cunaqabateen loogu qaado. sidoo kale maraakiibta lagu duqeynayay gacanta Cumaan ayaa lagu eedeeyay in Iran ay ka dambeysay. guud ahaan warkii aad ka daawanayseen warbaahinta Tubsan Media waa naga intaa. warkan war kale intaan dib ugu kulmeyno sidaas iyo nabadgelyo.